السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الصومالي محمد ملك استدى دونك جوكتان وولاشين أبح ورسماء مركا لي تلادي تلادة أسبوعاً وحان كسو قادنايا أو كاقا هادليا ولا ليالا وحيقا يابيي مرة بدن باحا ليقو دهاي أبحي محامر البوتر هذا وحيقا يابيي دي هدا أركتد وحيابها أو نقامada qaarkood oo Soomaal hadaan aan ku dhaqano de wax ka wada yaabinaya soo moogid gabar baa jirta horta intaan gabadha idin sheegin waxa iga yaabay waxa weeyaan dadka markii uu qof talo ku soo weydiisto ama qof uu ku yiraahdo walaalayaal dhib baa haystay ila tali maxaa looga dhigaa sidii inuu qofkaas wax xun soo sheegtay ama maxaa looga dhigaa wax adiga kugu dhici karin soo moogid wax kasta oo qof uu ku dhaw waxaas ay haystay in adigana kugu dhici karaan so taas waa notaas marka aan u soo galo this waxa weeyaan program aan hadda ka bacdi sameyn doono mar walba oo idin kugu soo dari doono talaadada ila tali walaal weeyaan dadka daawadayaasha ah iyo asxaabta nagu xiriirto ayaa waxa la rabaa inay eegana taladooda ka soo dhiibtaan gabar walaasheen ah ayaa waxay tiri hal ila taliyo sometimes dadku waxay dhihi karaan waa dilemma laakiin aniga dilemma ma rabo inaan iraahdo waxaan rabaa inaan iraahdo ila tali walaal gabadhan talina soo weydiisatay gabar walaasheen ah waxay tiri walaalayaalow gabadha waxaan ugu yeeraynaa mar la arag waxay tiri walaalayaalow dhibaato ay haysto dhibaatadii haysta waxay tahay inan baan isjeclaanay muddo dheer baan wada soconay inanka muddada dheer aan wada soconay waanu isguursanay guushii wada socodka waanu gaarnay markaanu isguursanay meelo badan baa isla soo wiilkaas soo mariyay asagu wadamadaas dadka soo tahriibay ku jiray wadankii uu tahriibka ku yimid markuu yimid anigii ayuu wuxuu ka shaqeeyay sidii aniguna isoo tahriibin lahaa lacag haduu uga bixin lahaa waqti haduu igelin lahaa dhinac walba wuu isoo taakuleeyay wiilku wuu isoo taakuleeyay wuu isoo caawiyay de waana isguursadeen xilligan iyada markay iga shaqeynayso waxa leedahay xilligaas isoo caawinayo ani asaga xaaskiisii baan ahay asna waa husbandkayga marka gabadha waxay leedahay arrintan igu dhacday walaalay u gudbid bulshada waxay iga dhihi lahaayeen baan rabaa inaan akhriyo oon iraahdo oon arko oo taladooda aan dhageysto anigana waxaan sameynay markaas waxaan kala soo dhexbaxayaa inta dadka taladooda waxay ku badatay ilaa waa la isla tashadaay marka waxay tiri gabadhan 9 sano almost 10 sano 9 sano ayaanu isqabnaa waa isku nimid finally isku meel baan ku noolaanay marka waxay tiri habeenkii ugu horeeyay oo intaas sano markaan sugayn intaas guursanay aan isku nimid qadar ilaahay qof adhami u qabtay ku hamiyeysay intaas raadinaysay intaas aad islahayd mar un ilaahu yaa isku meel idin geeya bay tiri ka waran haddii markaa habeenkii isku nimid ugu horeeyay uu wax hami ah oo aniga xaggayga iska waayay si kasta hadduu isugu dayay wiilkaas wax hamiyo iska waayay tiri dee qaracan iyo calool xumo anigana igaga badan ma lahayd tiri isagana sidoo kale labadayadiiba waxaan ugu dhacay bay tiri hanjab waanu hanjabnay say ahaataba qadartu way dhacdaa wixii kugu dhacay way ka weyn yihiin waxay tiri horta labadeennaba niyada naga jabtay oo hanjabka nagu dhacay wuxuu ahaa intaan isku haminaynay laba qof oo isguursaday intaas isla soo maray isku yimid markaas iyada ah aan isku imaanayno adigu waa ilaa iyo 5 sano 4 sano ka bacdi hadda laakiin 9 sano ayaanu isla joognay tiri weli dhibaatadii way iska jirtaa way dhacday dhakhtar kastaan u tagnay wax kastaan sameynay isagii dib haysata weeye anigu qof jecel baan ahay de hamiga hadii qofka iska waayo waxay tiri ma garanay anigu waxaan sameeyo xataa dhakhtarradaan tagnay anigu waxaan doonayaa tiri ilmo inaan dhalo xataa si kasta haddaan yeelnay dhakhaatiirtaan u tagnay wax kasta haddaan sameynay ilmana waxaa la yidhi labadiinni ma dhali kartiin aniga xaggaygana kama socotay dhakhaatiirta ay yiraahdeen marka laba arrimoodba meeshan way taalaa hamigii oo wiilkii uu iska waayay qadar ilaahay waa un wax jira oo xanuun ah ama dhib dhakhtar kasta oo aan marnay iyadoo ilmana la yiri isuma dhali kartiin oo adiga dhibka kama jira xaggaaga inankay ka jirtaa la yiri dhakhtardan tagnay marka walaalayaal waxay tiri gabadhani Soomaaliyay wax horta meeshan la isla yaabo ma taalo
qadar ayaa dhacday qof kasto anaga naga midana way ku dhici kartaa dhakhtar kasto tagnayna wax kasto la sameeyay wax caawiska sidii la rabay u caawiyay lama helin ilaa ay hadda 9 sano ka bacdi maxaa igula talin lahaydeen tiri ma inaan iska nasiibsado oo u samro waanan isjecelnahay tiri ogow yaa ma inaan u samro oo kula joogo oo ilaahay iskaga tala saarto mise inaan annagoo isjecel si niyada isku fasaxno maxay idin la tahay bal arintaas gabadhan walaashana way ii fasaxday inaan idin soo weydiiyo iyada iga codsatay iyada tiri ubaxay barnaamijkaaga dadka ku xiran u bandhig dadku maxay igula talin lahaayeen anigu ubax ahaan waxaan kula talin lahaa way ii qorshaysan tahay idinka waxaan rabaa inaan ogaado maxaad gabadhan kula talin lahaydeen ma rabo inaan waxaan aniga iyada kula talin lahaa aan idinku noqdo influence ama aan idinkana aad tiraahdeen ubaxay waan kugu raacnay ma rabo waxaan kula talin lahaa gadaal baan idinkaga soo gudbin doonaa video yar oo kaleeto ayaan dib ka soo duubi doonaa markaan arko jawaabtiina marka walaalayaalow reer taladii talaadadow maxay arintaas idinla tahay gabadhaas maxaa kula talin lahaydeen inay samayso 9 sano ayay isla joogaan 4 sanana waa intay tahriibka iyo soo mareysay waxay tiri wax walba oo dhib qof uu u maro ayuu wiilkaas ii soo maray odagayga tiri waan jeclahay intii qof uu dhib u maro si uu xaaskiisii ku keeno isku meel ay ugu noolaadana wuu ii soo maray nin ii wanaagsan dhinac walbo kastana wuu yahay laakiin labadaas xal oo maanta meel aan aniga ka mara aanan garanayn iyo si aan uga gudbo ayaa ay haysatay tiri qof nafley baan ahay qof dareen le baan ahay bay tiri qof hammi le baan ahay qof doonaysa hooyo inay maalin noqotaan ahay marka walaalayaalow maxaa igula talinaysiin ayay tiri gabadhaas mar la arag baa u bixinay walaasheen mar la arag maxaa kula talin lahaydeen qof walbo taladaada soo qor noo soo gudbi nala soo socodsii kommentiyada ayay akhrisanaysaa barnaamijkay ku xiran tahay gabadha walaasheen ah taladiinay wada akhrinaysaa soo gudbiya talooyinkiina soo dhiga qof walbo sida ilaahay kugu og yahay oo adiga qalbigaaga adigu sameyn lahayd gabadha walaasheena ula soo taliya waa mahadsantihiin barnaamijyada saan oo kalena waan idin soo gudbin doonaa waayo emailka ayaa igaga buuxaan arrimo saas oo kale ah waqti aan ku soo qaato ayaan awal hore u waayay laakiin hadda ka bacdi waxaan isku dayayaa dhowr program markaan sameeyay taladii talaadada hal program saan oo kale ah oo talo ii soo dhiibtay in oo dadkii la taliyaan qof ii soo dhiibtay arrintaas oo kale ayaa idin soo gudbin doonaa ila tali walaal ayaa la yiraahdaa barnaamijka qaybtaana la socda ciddii haysa arrin saas oo kale in lala taliyo doonaysa oo bulshada soo weydiisanaysa talo iyo waxay ka dhihi lahaayeen soo gudbiya emailka waa idin soo raacinaya ay igu soo dabadiri kartiin emailka aad maaragtay talooyinka ku soo ridi kartiin haddaad hoos ku soo post garaysaan dhinaca commentigana dee saas oo kaleeta ayadana waan idinla soo share garayn doonaa dadkana waa idinku gudbin doonaa waa mahadsantihiin fadlan share like subscribe thank you so much inta nagu xiran ee mar walbana taageerta waan idinkaga mahad celinayaa please subscribe and share with your friends ha ka faa'iidaystaane waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baarkinaan ku dhex jiraa waa adeeganaya mahadsanidin bye